ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Bariire gobolka Shabeellaha Hoose waxaana saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ay sheegeen inay dileen sagaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab. howlgalkan oo maanta ka dhacay deegaanka Bariire gobolka Shabeellaha Hoose ayaa taliyaha ururka 143 ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhame Axmed Xasan Siyaad oo la hadlayay idaacada ku wada shaafka ciidamada qalabka sida uu sheegay in dagaalkaasi lagu dilay madaxii hoobiyaha xarakada Al-Shabaab u qaabilsana gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa sidoo kale uu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 17 xubnood oo ka tirsan xarakada Shabaab sidoo kale ay burburiyeen xarumo ay ku sugnaayeen xarakada Al-Shabaab ee deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose walow faahfaahin intaasi ka baxsan uusan ka bixin taliyaha Axmed oo magaca sargaalka ay dileen ku sheegay Abu Nuur Mukhtaar oo ku magac dheera gaabshe isagoo Al-Shabaab u qaabilsana heynta iyo tuurida hoobiyaasha gobolka Shabeellaha Hoose. warkan ka soo baxay saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ku soo aadayay xilli muddooyinkii ugu dambeeyay deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ka dhacayeen dagaalo xoogan kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada huwanta iyo Al-Shabaab ayaa la sheegay in deegaanada ay ku sugayeen ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ay ku soo qaadayeen weeraro kuwaas oo geysanaya khasaare soo jira dhimasho iyo dhaawac.